Sanadkii 1977 wuxuu ahaa mid ka mid ah sanadaha ugu kulul taariikhda Geeska Afrika. Waxaa dhacay dagaal baaxad leh oo dhex maray laba dal oo deris ah kuwaasoo ahaayeen Soomaaliya iyo Itoobiya. Dagaalkan oo sidoo kale loo yaqaan dagaalkii Ogaadeen wuxuu ahaa dagaal xambaarsanaa taariikh, dareen qarannimo iyo ujeeddo fog oo ku saabsan midnimada Soomaaliyeed. Laakiin si aan u fahanno sababta uu dagaalkan u qarxay, waa inaan dib ugu laabanaa taariikhda qarnigii 20aad. Intayna u gudbin qaybtan, waxaan ka codsanaa channelka haddaad ku cusub tahay inaad subscribe dhahdo. Geeska Afrika ka hor dagaalka, Itoobiya waxay ahayd boqortooyo muddo qarniyo ah, waxaana markaas xukumayay Mengistu Haile Mariam kadib afgembi uu ku bixiyay Haile Selassie sanadkii 1974. Soomaaliya dhanka kale waxay ka dhalatay Midoogii Waqooyi iyo Koonfur sanadkii 1960-kii, waxaana xukumayay ama gacanta ku hayay Jaale Maxamed Siyaad Barre kadib afgembigii 1969 ama 1969. Labada dal waxay lahaayeen taariikh xurgufeed oo ku saleysan dhulka Soomaalida ee ku yaala Itoobiya, gaar ahaan gobolka Ogaadeen oo ay degan yihiin qowmiyad Soomaali ah. Himilada Soomaali weyn. Fikradda Soomaali weyn waxay ahayd himilo qaran oo isku dayeysay in la mideeyo dhammaan dhulka Soomaaliyeed ee laga jaray gumeystaha. 1. British Somaliland Waqooyi 2. Italian Somaliland Koonfur Djibouti Faransa Somaliland 3. Qaybo ka mid ah Itoobiya Ogaadeen 4. iyo Waqooyi gobolka NFD Kenya 5taas waxay ku aaminaysaa Soomaaliya inay mideyso ay dib u hanato. Soomaaliya waxay u arkaysay Ogaadeen inuu yahay gobol laga gooyay dhulkooda, isla markaana ay mas'uuliyad ka saaran tahay dib u xirayntiisa. Diyaargarowgii Soomaaliya. Laga bilaabo 1970-yadii, Soomaaliya waxay bilowday qorshe ballaaran oo ah in la diyaariyo ciidamo xooggan oo casri ah. Ciidamada Soomaaliya NSA waxay tababar iyo hub iyo taageero intaba ka helayeen Midoogii Sofiyeedka. Soomaaliya waxay ahayd mid ka mid ah dalalka Afrika ugu awoodda badan dhinaca militariga, waxaana lagu qiyaasay ciidankeeda inay gaarayaan 35,000 ilaa 60,000 askari oo ay weeliyaan intaa diyaarado dagaal, taangiyo iyo gantaalo casri ah. Dhinaca kale, Itoobiya waxay ku jirtay jahwareer siyaasadeed iyo kacdoono gudaha ah, gaar ahaan kadib kacdoonkii loo yaqaanay DEG. U diyaargarowga dagaalka. Soomaaliya waxay taageero siinaysay jabhadaha loo yaqaan ONLF oo laga soo gaabiyay Ogaadeen National Liberation Front oo u dagaalami jiray xoreynta Ogaadeen. Waxaana la sheegay in Soomaaliya ay si hoose ugu diyaargaroobaysay inay si toos ah u gasho dagaal. Markii ay Soomaaliya ogaatay in Itoobiya ay daciiftay gudaha ahaan ayna ka baxday taageeradii Midowga Sofiyeedka, waxay go'aansatay inay fursaddaas taariikhi ah laga faa'iideysto. 13 Julaay 1977, cirka Geeska Afrika ayaa mugdi galay. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxay si rasmi ah ugu fidayeen gudaha gobolka Ogaadeen, taasoo bilow u noqotay dagaalkii ugu weynaa qarnigaas ka dhacay Afrika. Soomaaliya waxay si buuxda u gashay dagaal, iyadoo aaminaysay in la mideeyo dhulka Soomaalida oo la helo Soomaali weyn oo mideysan. Weerarka hore dagaalka bilaabmay. Ciidamada Soomaaliya ayaa weerar culus ku qaaday saldhigyada militariga ee Itoobiya ku yaala, kuwaasoo xuduud ku lahayd gaar ahaan jidka Goday, Wardheere, Qabri Dahare iyo Dhagax Buur. Weerarkaas Soomaaliya waxay u adeegsatay taangiyo T-55 ah, diyaarado MiG-17 iyo MiG-21, iyo ciidamada lug oo si heer sare ah u tababaran. Weerarka wuxuu ahaa mid qorsheysan oo lagu bartilmaameedsaday meelaha istiraatiijiga ah, taasoo ugu dambeyntii Itoobiya ka yaabisay. Qorshaha Soomaaliya wuxuu ahaa weerar degdeg ah iyo guul degdeg ah, laakiin dagaalkii wuxuu noqday mid aad uga qoto dheer intii laga filayay. Guulihii hore ee Soomaaliya. Soomaaliya waxay muddo bil iyo dhowr maalmood gudahood ku qabsatay in ka badan 90% dhulka gobolka Ogaadeen. Magaalooyin muhiim ah oo laga qabsadayna waxaa ka mid ahaa Goday oo ahayd xarun istiraatiiji ah, Qabri Dahare iyo Jigjiga, halkaasoo ciidamada Itoobiya laga jibiyay. Warbaahinta caalamka ayaa iyadana ku weerartay guusha degdega ah ee Soomaaliya. Waxaa wararka lagu gudbiyay in Itoobiya ku dhowdahay burbur buuxa. Mar haddii Jigjiga la qabsaday, Soomaaliya waxay ka fikiraysay tallaabada xigta. Xeeladaha militariga ee Soomaaliya. Soomaaliya waxay isticmaashay xeelado dagaal oo casri ah oo la mid kuwii militariga Bariga Yurub. Waxaa la helay isfaham buuxa oo u dhexeeya ciidanka dhulka, hawada iyo sirdoonka. Dagaalyahanada ONLF ayaa dhanka deegaanka si weyn u taageeray ciidanka Soomaaliya, waxayna bixiyeen xogaha gudaha. Faa'iidooyinka Soomaaliya ee bilowgii burburka. Qalab casri ah. Soomaaliya waxay haysatay hub casri ah oo laga helay Midowga Sofiyeedka ka hor inta aysan xiriirka loo jarin. Taageero shacab. Soomaalida ku nool Ogaadeen
waxay u arkayeen ciidamada Soomaaliya kuwa xoreynaya Itoobiya oo jahwareersaneed. Boqortooyadii Itoobiya way burburtay waxaana la tacaalaysay kacdoon gudaha ah sida Eritrea iyo Tigray. Haddaba qarniga Soomaaliya waxay ahayd dalkii ugu awoodda badnaa Afrika xagga militariga, waxayna u muuqatay in guusha la helay. Warbaahinta iyo dunida caalamka. Warbaahinta caalamka waxay la raacaysay guulaha Soomaaliya, laakiin isla waqtigaas waxaa bilaabmay loolan siyaasadeed oo weyn. Midowgii Soviet oo ka niyad jabay Soomaaliya kadib markii ay dagaalkii si buuxda u bilaabmay. Dalka Cuba oo qaaday mowqif Itoobiya lagu taageerayo. Mareykan oo asna si cad aan u taageerin midkood balse si dhow ula socday xaaladaha. Soomaaliya waxay isku diyaarinaysay inay xoreyso dhammaan ogaadeen, balse siyaasadda caalamka ayaa bilaabatay inay farageliso. Goorma ayay Soomaaliya joogtay xadka guusha? Waxaa la sheegaa in 24,000 oo askari Soomaaliyeed ay joogeen gudaha Itoobiya. Ciidamadii Itoobiya waxay bilaabeen inay dib ugu gurtaan xeryaha, mana jirin difaac muuqda bilowgii. Soomaalidu waxay u muuqatay inay ku dhowdahay inay gaarto hadafkeedii Soomaali weyn, ugu yaraan qaybtiisii Itoobiya. Laakiin sida badan taariikhda Geeska Afrika waxay muujinaysaa in guusha militari aysan mar walba ahayn guul siyaasadeed. Jawaabtii Itoobiya, soo geliddii dagaalka dalka Cuba iyo isbeddelkii caalamiga ah. Markii ay Soomaaliya qabsatay inta badan gobolka ogaadeen, waxay u muuqatay in guusha dhanka Soomaali tahay. Laakiin dunida caalamka, gaar ahaan quwadaha waaweyn, waxay si degdeg ah u farageliyeen dagaalka. Waxaa bilaabmay xaalad cusub oo dagaalkii maxalliga ah ka dhigtay dagaal ku lug leh quwadihii bariga iyo galbeedka. Isbeddelkii joogtada ahaa ee Itoobiya. Sanadkii 1974 Itoobiya waxaa ka dhacay afgembi uu horseeday Generaal Mengistu Haile, kaasoo meesha ka saaray Boqor Haile Selassie. Mengistu wuxuu dhisay nidaam shuuciya ama hanti wadaag, wuxuuna si buuxda ula xiriiray midowgii Sofiyeetka. Markii uu dagaalkii bilaabmay, dowladda Itoobiya waxay la kulantay kaalmo la'aan dhanka difaaca gudaha sababo la xiriira burburkii ciidamadii boqortooyadii hore. Siyaad Barre wuxuu filayay in midowga Sofiyeetka garab siin doono Soomaaliya maadaama uu si hore ula saaxiib ahaa nidaamkii shuuciga ama hanti wadaag, balse xaaladaha waxay isku beddeleen ama isku rogeen si lama filaan ah. Dalka Cuba oo xiriir dhow la lahayd midowgii Sofiyeetka ayaa go'aansatay inay u gurmato dalka Itoobiya. Fidel Castro wuxuu u arkay Soomaaliya inay jebinayso xuduudaha Afrika oo la isku afgartay kadib gumeysigii. Waxaa la diray in ka badan 15 askari oo Cubaan ah, hub culus, diyaarado MiG iyo taangiyo. Intaba waxaa la isku dawdiray si loogu gurmado dalka Itoobiya. Haddaba ciidamada Cubaanka waxay si buuxda u tageen Itoobiya, gaar ahaan gobolka Harar, halkaasoo ay ka dhiseen xarumo dagaal. Midowgii Sofiyeetka oo garabka u beddelay Soomaaliya. USSR waxay filaysay in Soomaaliya aysan si toos ah u galin dagaalka, balse markii ay ogaatay in Soomaaliya weerar toos ah qaaday, waxay taageerada u wareejisay Itoobiya. Waxaase la joojiyay tababaradii militariga Soomaaliyeed, dhoofinta hubka. Taa beddelkeeda, Itoobiya waxay heshay saraakiil Ruush ah, xisaab ahaan $1.5 bilyan oo hub ah, taageero sirdoon iyo qorsheyn dagaal. Intaa kadib, Soomaaliya waxay dareentay khiyaano siyaasadeed. Waxay si rasmi ah u jebisay xiriirka ay la lahayd midowga Sofiyeetka, waxayna ku eedeysay in lagu taageerayo Itoobiya dulmi ay ku haysato dad Soomaaliyeed. Soomaaliya iyo go'doomintii caalamiga ah. Soomaaliya waxay isku dayday inay la xiriirto dalalka Carabta iyo dalalka galbeedka, balse taageeradii la rabay lama helin. Mareykanka wuxuu isku dayay inuu dhexdhexaadiyo, balse ma uusan taageerin midkood. Dalalka Carabta sida Ciraaq iyo Liibiya ayagana waxay bixiyeen gargaar kooban, taasoo Soomaaliya aan ka dhigin mid si toos ah u gasho dagaalkii. Markii ay Soomaaliya lagu go'doomiyey siyaasad iyo militari, waxaa bilaabmay inay kula hadasho dalal badan sidii loo heli lahaa garab, laakiin waqtigu wuxuu noqday mid dhammaaday. Isbeddelka dagaalka jabhadihii Itoobiya iyo kuwa dalka Cuba. Qaybihii hore ee 1978 ciidamada Cuba iyo Itoobiya waxay sameeyeen weeraro ballaaran oo lagu qaaday saldhigyada Soomaaliyeed ee ku yaalay gudaha ogaadeen. Jigjiga oo ahayd mid ka mid ah magaalooyinkii ugu weynaa ee qabsadeen ciidamada Soomaaliyeed, waa la weeraray si culus. Waxaa la adeegsaday diyaarado dagaal oo MiG-23 ah, dagaalyahano Cubaan ah oo si joogto ah uga dagaalamayay gantaalo culus oo dhulka iyo cirka ah. Jigjiga waxaa ka dhacay dagaalkii ugu cuslaa dagaalada oo dhan. Kumanaan ayaa ku dhimatay, waxaana lagu tilmaamay inuu ahaa Stalingaradkii Afrika. Haddaba dib u celintii Soomaaliya. Ciidamada Soomaaliyeed waxay bilaabeen inay dib ugu gurtaan deegaankii ay qabsadeen, ayagoo wajahaya culays militari, dhaawac iyo garab istaag la'aan. 1978 dabeeqadiisii ciidankii Soomaaliyeed si buuxda ayay uga baxeen ogaadeen. Guushii la filayay waxay isku rogtay guuldaro.
dagaalkii Soomaaliyeed ee ugu yaraa. Siyaasaddeena way jabtay, militarigiina wuu burburay. Qaybtan halkaa ay ku eg tahay. Mar kale waxaan kaa codsanayaa channelka haddaad ku cusub tahay subscribe dheh, lana soco qaybta xigta.